dibadbax ballaaran oo lagu taageerayo golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhawaan soo magacaabay Ra'iisul Xasan Cali Khayre ayaa wuxuu ka dhacay daljirka daahsoon ee degmada Boondheer ee gobolka Banaadir. dibadbaxan maanta ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa soo qabanqaabiyay maamulka gobolka Banaadir oo qudhiisa ka qayb galay banaanbaxaasi. dadka dhigaya banaanbaxa ayaa waxay wateen boorar iyo waliba erayo ay ku taageerayaan xukuumadda cusub ee Ra'iisul Xasan Cali Khayre. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa wuxuu sheegay in shacabkaani ay muujinayaan shucuurtooda ku aadan qaabkay u taageersan yihiin xukuumadda cusub. waxaan waa in la soo daalay isqaqabsi iyo iska daba jiitan iyo waa laga soo daalay. waxaan rabnaa inaan hor u soconno. waxaan hubnaa madaxweynaha sawirkiisa naga hor muuqdo madaxweyne Farmaajo habeenkii la doortay waxaa u bannaan baxaya kumanaan Soomaali ah oo cid soo abaabshaysan jirin. waxay ku tusaysaa saas ciddii oo keenana rabitaanka shacabkay ku timiday golaha wasiirada la rabitaanka shacabkay ku imaanayaan. waxaan rabnaa shacabkuna wuxuu farayaa baarlamaanka uu ka codsanayaa inay ansixiyaan ayuu ka codsanayaa baarlamaanka shacabkan halkan taagan. qaar ka tirsan mas'uuliyiinta iyo dadkii ka qayb galay banaanbaxa ayaa waxay fikradooda ka dhiibtay iyagoona tilmaamay inay taageersan yihiin xukuumadda cusub loona baahan yahay in baarlamaanku ay ansixiyaan xukuumadda. haweenkan waxa ku jira hooyooyin uur leh waayeen inta dhalinyaro waxay u taagan yihiin soo-ansixinta iyo in aan la hadalno golaha shacabka. maxaan ka codsanaynaa ka haween ahaan golaha wasiirada waxaa noogu jira ilaa 8 gabdhood oo noogu jira 8 gabdhood. waxaan rabnaa marka hore xukuumaddan inay noqoto mid aan ku ekaanin xayndaab ama gaari ku fulan inay soo daadegaan golaha wasiirada gabdhaha noogu jiro. gabdhaha waa gabdhihii qaraxa isku dhigayay waa kuwa taagnaa. maantana waxaan rabnaa inaan ka qaadano doorka haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda. Dirixeen Cabdullaahi Honkabel TV magaalada Muqdisho.